إن شاء الله الله ينورك agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland barasaafka gobolka Awdal iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal hawlaha guud dhulka iyo guryeynta iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen hospitaalka Tiimbeed oo laga dhisi doono galbeedka magaalada Boorama xaruntani maanta la dhagax dhigay ayaa waxa loogu adeegi doonaa dadka qaba xanuunka qaaxada barbilana waxa hadalka iiba furay iskuduwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta gobolka Awdal Salebaan Aadan Samatar runtii dhulka ama bedka laga dhisi doono hospitaalkan iyadoo laga eegayo mustaqbalka fog ee maxaa ku raahday uu u shaqeyn doono ummadda darteed dhulka la wareejinayo waxa weeye cabir dhan 200 iyo 200 intaasi kadib waxa dhankooga hadalka iska daba qaatay iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Hussein Aadan Dr. Xoogsade iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbar waxaana isdul taagan muhiimadda ay leedahay xaruntani caafimaad ee lagu adeegi doono dadka qaba xanuunka Tiimbeed ee maanta laga dhagax dhigay galbeedka magaalada Boorama maadaama magaalada Boorama ay kordhayso hospitaalka weynaana culays badan oo hospitaaladii kale mataqaanaa hospitaalada dhankooda dhex shaqeynayeen awgeed waxa la gartay sidii mataqaanaa dhul loogu heli lahaa loona dhisi lahaa hospitaalka Tiimbeed waxaanu ka gudoomaynaa maanta halkan dhulka ay nagu wareejiyeen wasaaradda hawlaha guud iyo gudoomiyaha gobolka Awdal waanu ka gudoonay insha Allah waxaan rajaynaynaa ka wasaarad ahaan inaan doorkayga qaadano oo aan soo la wareegnay aan insha Allah dhismihiisii iyo mataqaanaa sidii loo dhisi lahaa aan fulogayga galno qodobka labaad ku dirsanaya waxa weeyaan dadweynaha reer Boorama waxaanu ka diray xagga fariin ah in maadaama hospitaalkii dhulkii loo helay insha Allah iyaguna ka qayb qaataan wixii dhinacooga sidii aan u dhisan lahayn hospitaal qurux badan dadka mataqaanaa baahidii badneed iyo cabashadii badneed ah hospitaaladii oo dhan isku dhex yaala hospitaaladii TVda ayaa magaalada ku dhaxa cabashadii si meesha uga baxdo in dadkuna ay ka qayb qaataan doorkooga oo in hospitaalka sidii loo dhisi lahaa gacmaha la soo qabsado annagu gobol ahaan dad iyo xukuumadba waanu ku dadaalaynaa inaanu ka geysano gacan wax ku ool ah waxaan ku amrayaa hawlaha guud suduwahooda iyo dawladda hooseba inay sida ugu dhaqso badan sharciga faylka meesha u soo sameeyaan uguna wareejiyaan suduwaha gobolka ciidanka booliisku shaqadiisa uu qabsan yaqaan isagu mas'uuliyadda meesha isaga ka mas'uula ilaalinteeda iyo ka hawlgalkeeda labadaba way noogeyn dadun baa laga xiska dhigto dhulka banaane aan beernahayn ayuu baan beer bay ahayd dadka ka iibiyay ilaa tiriskiisa waanu isla nimi meesha waa laga wareegay sheekadeedu way dhamaatay dhagaxan yaalana dawladda hoose shaqadeeda ha qabsato ha kala ergalayso meesha assalaamu calaykum laga bilaabo saacada waxaan ku wareejinayaa dhulkaas agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka isuduwaha gobolka Awdal maamulaha hospitaalka Tiimbeed intiina waxaan leenahay naga gudoomo dhulkaas guntiga gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye waxaana uu si weyn isku dul taagay muhiimadda ay leedahay xaruntani caafimaad ee maanta sida rasmiga loo dhagax dhigay gobolka Awdal iyo isduwaha wasaaradda hawlaha guud ay u wada joogaan dhulkii laga dhisi lahaa hospitaal loogu talagalay xanuunka qaaxada oo ay nagu wareejiyeen dhul cabirkiisu yahay 200 oo mitir iyo 200 oo mitir waa dhul ku filan way la wareegtay wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaanay ka dhisi doontaa hospitaalka iyo wixii kale hawl looga baahdaba ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u baahataba runtii miisaaniyadda qaranka waxa ugu jira hospitaalka Tiimbeed ee Boorama qadar lacag ah qadarkaas oo lagu bilaabi doono wixii ay ka gaadho hore loogu dhisi doono meesha aynu maanta astaynay wixii kalena waxaan baaq u dirayaa inuu gobolka iyo degmada iyo guud ahaanba dadweynaha reer Awdal ay ka qayb qaataan sidoo hospitaal qurux badan oo wanaagsan oo ballaaran oo lagu daaweeyo xanuunka Tiimbeed uga dhismi lahaa dhulka ballaaran ee layna siiyay gudoomiye waanu kala wareegnay aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa sida dhammaystiran ee hagar la'aanta ah ee aad ula shaqayso wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasaaradaha kaleba isiga sabaate maanta waxa dunida laga xusayay maalinta qaaxada adduunka magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ayaa kamid ahayd meelaha sida weyn looga xusay waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV
boorama.